wacan oo wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad inagala socotaanba wararkeenana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo shalay ka dhoofay magaalada Hargeysa ayaa gaaray dalka Switzerland ee qaaradda Yurub halkaas oo ka socda shirweynaha madasha dhaqaalaha adduunka kaasoo ay ka qayb galayaan in ka badan 60 hogaamiye oo ka kala yimid dalalka caalamka oo ay ku jiraan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Israa'iil inkastoo xukuumadda Soomaaliland aanay faahfaahin ka bixin safarkii madaxweyne Ciro shalay kaga dhoofay magaalada Hargeysa ayaa haddana fariin kooban oo madaxweyne Ciro goordhoweyd uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook isagoo saaran diyaarad yar oo nooca qumaatiga u kaca oo laga leeyahay dalka Switzerland waxa uu ku sheegay in shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu salaamayo meel kastoo ay joogaan una rajeynaya khayr iyo nabad iyo waliba barwaaqo sawirkan madaxweynuhu soo dhigay ayaa waxa uu muujinayaa inuu joogo dalka Switzerland halkaas oo la filayo inuu kaga qayb galo shirweynaha dhaqaalaha madasha adduunka isla markaana uu shirdacaad la yeesho madaxda kala duwan ee ka qayb galaya shirweynahaasi waxaana la filayaa in madaxweynaha Israa'iil oo dalkaasi jooga inuu qayb ka noqdo madaxda kala duwan ee madaxweyne Ciro uu la kulmi doono shirkan ayaa sidoo kale waxa isugu yimi maalqabeennada kala duwan ee adduunka iyo shirkadaha waaweyn ee adduunka waxaana la filayaa in madaxweynuhu uu maalgashadayaasha kala duwan ee shirkaasi ka qayb galaya uu kulamo kala duwan la qaadan doono isagoo soo bandhigi doona fursadaha ka bannaan Soomaaliland iyo maalgashiyada ay ku sameyn karaan